السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan idinku soo hadlayna waa channelkeeni Englishka course aan ugu baxayay. Casharkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay waa dialogue. Hot dialogue waa sheeko kulul between u dhaxaysa boy will and girl iyo gabar. Waxay ka hadlayaan bal aynu si fiican u dhageysano. Hello warhay calaamadaas leedahay hello waxay leedahay exclamation markaas leedahay hello warhay sister of mine walaasheediyay sister of mine walaasheediyay how is your situation at the moment waa sidee xaaladaada waqtigan xaadirka how is your situation waa sidee xaaladaada at the moment hadda aan kula hadlay waa sidee xaaladaada well ee dhahday gabadhii fiican my situation xaaladeeda is 100% waa boqolkiiba boqol asida you can see at ka arkayso my physical appearance muuqaal ismeedkayga wiilka bila wuxuu dhahay where are you in harin halkiibaad u degdegaysaa where are you in harin halkiibaad u degdegaysaa gabadhii wax ugu jaabtay indeed xaqiiqadii I am in harin waxa u degdegayaa to my girlfriend's house guriga saaxiibadeyda gabadha saaxiibteed ah gurigeeda ayaan degdegay dhahday indeed xaqiiqadii I am in harin waxa u degdegayaa to my girlfriend's house guriga saaxiibadeyda wiilka yiri why are you going maxaad u aadaysaa to your girlfriend's house guriga saaxiibada maxaa u aadaysaa why are you going maxaad u aadaysaa to your girlfriend's house guriga saaxiibada maxaad u aadaysaa brother walaalkaygiyo it is not ma aha your business shaqadaada ma aha to know inaad ogaato the reason sababta that taasoo I'm going there halkaas aan u aada inaad ogaato saaxiib ma aha adeeg shaqadaada ma aha ha soo fargashan shaqadeedu brother walaalkiyo it is not your business shaqadaada ma aha to know inaad ogaato the reason sababta that I'm going there halkaas aan u aada sababta inaad ogaato shaqadaada ma aha so ahaatee take care of ka dhowr iska jir what you are saying waxaad dhehayso u fiirso waxaad dhehayso ka fiirso iska ilaali waxaad dhehayso okay waya sister walaasheedii as you know saad ogtahay there are waxaa jira thieves tuugo and robbers iyo burcado who always kuwaasoo markasta like jecel to rape inay kufsadaan the girl gabdhaha so that ha ahaatee what do you mind maxaa qabtaa if I go with you haddii aan ku heliyo oo aan ku raaco maxaa qabtaa walaasheedii okay waayahay sister walaasheedii as you know saad ogtahay there are waxaa jira thieves tuugo and robbers iyo burcado who always kuwaasoo markasta mar allaale like jecel to rape inay kufsadaan the girls gabdhaha so that ahaatee what do you mind maxaa ka qabtaa if I go with you haddaan ku raaco maxaa ka qabtaa haddaan ku raaco to tell you the truth runta aan kuu sheego walaalkayo my brother walaalkayo I am not me aniga as kuwad film me aniga sidii film me as ay u yihiin your sister walaalaha and I am not afraid kama cabsado of anyone qof kama cabsado don't go with me waxba iraan aniga to tell you runta aan kuu sheego to tell you the truth runta aan kuu sheego walaalkayo my brother walaalkayo I am not aniga mihi as sida mihi kuwad fully as ay u yihiin sida your sister walaalayaashaada and I am not afraid kama cabsado kama baqo of anyone qof kama baqo aniga so don't go with me waxba iraan perfectly sida runta ah I have never seen marna maan arkin a girl gabar who is taasoo ah as brave sida gees ah as you sida gees ah ta adiga qof awil soo arka ma jiro so whom are you relying upon yaad ku haleynaysaa perfectly sida dhabta ah I have never seen marna maan arkin a girl gabar who is taasoo ah as brave sida gees ah as you saado kale gabar gees oo kale wil maan arkin so ahaatee whom are you relying upon yaad isku haleynaysaa adiga yaad isku haleynaysaa if I speak haddii aan ka hadlo about the reality xaqiiqada if I speak haddii aan ka hadlo about wax ku saabsan the reality xaqiiqada all my brothers walaalahay oo dhan oo wiilasha ah and cousins ilma adeertayduba are still alive will way nool yihiin and I'm relying upon them ayagaan isku haleynayaan if I speak haddaan ka hadlo about the reality xaqiiqada all my brothers walaalahay oo dhan and cousins ilma adeertayda are still alive will way nool yihiin and I'm relying upon them ayagaan isku haleynaya wiilka wuxuu yidhi go on your way ku soco waddadaada and we shall see arki doonaa what your brothers do wax walaala ay samayn doonaan
I can't tolerate uma dulqaadan karo of your verbiage talking hadalkaada qashka oo bilaashka ah. I can't tolerate uma dulqaadan karo of your verbiage talking hadalkaada xun. Verbiage waxaa leedahay hadallada qashka ah. So leave me alone iga qalay iga gambisaniyo. Go on your way ku soco wadadaada and we shall see wa arki doonaa what your brothers do wax walaalaha ay sameynayaan. I can't tolerate gabadhii uma dulqaadan karaayo. I can't tolerate ama I cannot tolerate uma dulqaadan karo of your verbiage qashka ah talking hadalkaada qashka uma dulqaadan karo. Soo ahaatee leave me alone iga gambiso. Sheekadeennii halkaas kusoo gabagabeynay. waxaan idin leeyahay casrada ha lala socdo si wanaagsan loola socdo. gordho waxaan soo dhigi doonaa waxyaalo muhiim ah insha allah. sidaa iyo maqal wanaagsan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.